dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii hore inoogu soo socday ee ahaa barashada afka Soomaaliga waxaan horey u soo qaadanay qaybo badan oo ka mid ah afka Soomaaliga waxaana ka mid ah xarfaha shibanaha iyo shaqalka caawan halkan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa 7 xaraf ee laba jibaarma marka dhageysi wacan toddoba xaraf ee laba jibaaranta waxa u horeeyay waa ba lambarka koowaad waxa ku qoran dabaal laba ba baa dhexda ku jirta hal ba hadii laga saaro wuxuu isu bedelayaa dabaal marka sidaas in u bartaan baa la rabaa lambarka xiga waa cabaar waa laba ba baa dhexda ku jirta waa laba jibaaran yahay kan saddexaadna waa qabaan marka hal ba hadii laga saaro wuu is bedelayaa marka dhawaaq wuu is bedelayaa marka sidaa loo barto xarafka labaad ee laba jibaarmana waa da saddex lambar hortiina taala midkiisa koowaad waa badda labada da hadii mid laga tuuro macnuhu si kale ayuu noqonayaa kan labaadna waa nabadda labada da hadii mid laga tuuro macno kale uu yeelanayaa kan saddexaadna waa wadan hadii laga tuuro hal da wuxuu noqonayaa wadan marka sidaa loo barto xarafka saddexaad ee laba jibaarma asna waa ra hortiina waxaad ku aragtaan saddex lambar kiisa u koreeyo waxa ku qoran waa bare hal ra hadii laga saaro wuxuu noqonayaa bare marka waxaad ogaataan shay kasta oo laba ra ah hadii mid laga saaro macno kale ayuu yeelanayaa xarafka kale asna af Soomaaliga laba jibaarma waa xarafka ga saddex lambar hortiina taala kan u koreeyo lambar 1 waxa ku qoran waa bogga laba ga baa dhexda ku jirta hal ga hadii laga saaro macnuhu waa isbedelayaa kan labaadna waa laga laba ga baa dhexda ku jirta hal xab hadii laga saaro af Soomaaliga si kale noqonayaa lambar 3 lambar 3 waxa ku qoran waa jooga labada ga hadii mid laga tuuro macnuhu si kale ayuu noqonayaa sabab la socdo lambarka xiga oo asna laba jibaarma waa la saddexda lambar oo hortiina taala midka u koreeyo waa kalluun hal hadii laga saaro macno kale uu yeelanayaa lambarka labaadna waa jilaab lambarka saddexaadna waa dalaal labada la hadii midka dhexe laga saaro wuxuu noqonayaa dalaal buu isu bedelayaa marka sidaa loo barto xarafka kale asna laba jibaarma afka Soomaaliga waa ma saddexda lambar ee hortiina ku qoran lambarka koowaad waa dhamme laba ma ayaa ku jirta hal ma hadii laga tuuro macno kale uu yeelanayaa ka ku xigana waa ammaan ka ku xigana waa damiin hal ma hadii laga tuuro macno kale ayuu yeelanayaa saa loola socdo xarafka ugu dambeeya ee af Soomaaliga laba jibaarma waa xarafka na saddex lambar hortiina yaala kan u koreeyo waa janno lambar 1 waa janno naada hadii laga saaro jana ayuu isu bedelayaa marka labadana in la isku qabto waa muhiim kan labaadna waa banaan kan saddexaadna waa midkaan uga gol leeyahay caaw inaad ku xafidaan 7 xarfood ee laba jibaarma marka hadii lagu weydiiyo lagu yiraahdo 7 xarfood ee laba jibaarma wax ka sheeg qofna maskaxda kuma hayn karo laakiin si fudud ayaan idin sheegaya caaw markii lagu weydiiyo 7 xaraf waa inaad tiraa badara galamana macallinkii anaga waxna soo barayaa sidaan ugu baray marka maskaxdayda hadda waa ka beelahay 20 sano kadib badara galamana waa 7 xarfood oo la isu keenay marka sidaa lagu xafido 7 xaraf oo laba jibaarma waxa la yiraahdaa badara galamana waa ba iyo da iyo ra iyo ga iyo la iyo ma iyo na saasa la isku qabtaa marka waa maasintii af Soomaaliga Allah xafido. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.